laaran ayaa ka qabsoomay magaalada lafaciisa ee gobolka Nifaafan kulankan oo ay ka soo qayb galeen suldaamada culimada diinka maamulka magaalada lafaciisa hooyooyinka dhalinyarada magaalada ayaa waxaa kulankan lagaga wada hadlayay si xoojinta nabadgelyada horumarka iyo maamulka suuban iyo wada noolaanshaha qoomiyadaha kala duwan ee ku nool magaalada lafaciisa waxaana ugu horeyntii kulankaasi ka hadlay gudoomiyaha magaalada mudane cali cabdi cumar iyo qaar ka mid ah suldaamada culimada diinka ee ku nool magaaladaas lafaciisa waxaan ka xunahay dacdadii dhacday 28 hamle ama 4 Agosto ee ka dhacday caasimada degaanka Jigjiga iyo magaalooyinka kale deegaankeena dacdadaas oo runtii wax aad looga xumaada ah horeyna looga arag ama taariikhna aan u lahayn deegaankeenu inuu taasoo kale ku kaco oo ay ahayd wax dawlad deegaanka aan ahayn wax ay dana gaar iyo dad gaar ah iska wataan ahayd waxa kale soo dhaweynaa wada noolaanshaha midnimada shucuubaha Itoobiya ku nool waxa kale ballan qaadayna oo aan ka ballan qaadayna inaan si adkaynayno oo ka shaqeeyno adkaynta nabadgelyada iyo sinaanta waxa weyn arrintaas runtii waxa aad baan ugu xunahay diinteena islaamkana meel kaga taalo waxa islaamnimadu waa ka dibadda weeyaan dadku xuquuq way isku leeyihiin diinteena islaamku sideedaba waa diin nabadgelyo weeyaan diinta islaamku waa diin nabadgelyo ma aha diin dadka dhibta ma aha waa diin dhammaan sugtay xuquuqaha dadka weeyaan hadduu qofku gaal yahay iyo hadduu islaam yahay diinteenu xaqiisa kama tegin way sugtay dhacdadaas marka cid sameeyay waxa weeyada gaar ku tahay annagu waxna matala ma aha aadna waan uga xunahay waxaan leenahay marka oo amaanaya mar labaad iyo mar saddexaadba dadweynaha lafaciisa sharafta mudani waxay ku dadaaleen inay qoomiyadaha badbaadiyaan iyo dadka ku dhex nool ayay markaa badbaadiyeen marka dadka magaalada lafaciisa sharaf bay mudan waxaan oran karaa waa degmada qura ee wax godaba aan dalka Itoobiya iyo dadkiisa midnaba aan ka gelin ummadda caalamka ku nool meel kastaba ha joogaan dalka gudihiisa ha joogaan dibadda ha ka joogaan waxaan halkan uga cadaynaynaa oo sheegaynaa inay tahay hoyga nabadoo cid wax lagu yeelay haba yaraatay aanay jirinba sidoo kale waxaan ayagana waraysi la yeelanay qaar ka mid ah qoomiyadaha ku nool lafaciisa oo noo sheegay inay ku noolaayeen muddo aad u dheer la 4 ዓመት ያህል ለፈሳው ጽናለው ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የፋፋም ወረዳ የፋፋም ዞን የለፈሳ ወረዳ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ከ100 ሚሊዮን ህዝብ አንዱና የመጀመሪያው አርጌ ነው የምቆጥረው ክልል 5 ለኔ ያሳደገኝ የኖርኩበት ለብዙ ዓመት ያጣሁበትም ያገኘሁበትም አገሬ ነው degmada lafaciisa waa magaalada muddo 40 sano ah aan deganaa dhammaanba dhalinta aad arkaysaan midaanan luqadda maxaariga aan barin oo aan haahuuda anigu aan barin kuma jiro waana ubadkaygii wax dhibaato ah kuma qabno balse waxaan aad uga xunahay dhibaatadii deegaanka soo gaadhay bishii hamle 28keedii 2010 dhibaatadaas soo gaadhay deegaanka waxay ahayd mid wada saameysay degmooyin badan dhibaatadaasina dadka geystay waxay ahaayeen dad kooban oo farakuteris waanan wakiilka ahayn ama aanan metelin bulshada sharafta leh ee Soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwa rabay inay isku dhacyo ka dhax abuuraan diimaha